madxafka ugu weyn dunida wuxuu ku yaalaa A Yemen, B South Africa, C Egypt ama Masar, D Sudan. haddaba jawaabta C oo Egypt ah waa sax. saxaabiga keliya ee magaciisa quraanka lagu sheegay waa A Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, B Umar bin Khattab radiyallahu anhu, C Uthman bin Affan radiyallahu anhu, D Zayd bin Harith radiyallahu anhu. haddaba jawaabtu waa D oo ah Zayd bin Harith. waa sax. dalka Djibouti wuxuu xornimada qaatay sanadkii A 1977, B 1967, C 1975, D 1960. haddaba jawaabtu waa A oo ah 1977. waa sax. qaaradda aan lahayn dhul lama deegaan ah waa A Aasiya, B Afrika, C Yurub, D Amerika. haddaba jawaabtu waa C oo ah Yurub. waa sax. imisa ciidood ayuu islaamku leeyahay? A 2, B 3, C 4, D 1. haddaba jawaabtu waa B oo ah 3. waa sax. haddii aad danaynaysaan fadlan su'aalahan inaan sii wado please comment ii reeba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.